waxaa ka mid noqon doona wafdi ballaaran oo ka kala socda Somaliland iyo Soomaaliya oo ku sii wajahan magaalada Djibouti ee dalka Djibouti. wadahadaladii Soomaaliya iyo Somaliland oo si rasmi ah uga furmaya maanta halkaasi. Ra'iisul Itoobiya maanta waxa uu ku sii wajahan yahay isna magaalada Djibouti iyo waliba wafdi ka kala dursan midowga Yurub oo gobolka IGAD iyo xubno matalaya caalamka qaramada midoobay. Muqdisho oo jidad badan ay dawladda Soomaaliya dib u xiraso xilli ay lagu dhaleecanayay in magaalada Muqdisho ay wadooyinkii badanaaba la jaray ama dawladda Soomaaliya ay xirtay. qodobada wararka dibadda aanu idin hanana waxaa ka mid noqon doona dalka Nigeria oo ay dad badan ku dhinteen kaasoo markii ay kooxo hubeysan weerar ku soo qaadeen. waa 14 bisha June sanadka 2020 haddii aan ku bilaabno wafdi ballaaran oo ka socda Somaliland iyo Soomaaliya ayaa maanta halkaas wada lagu furayaa. madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba Xasan Cali Khayre gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ku sii wajahan magaalada Djibouti ee dalka Djibouti. wadahadalladan waxa ay halkaas maanta ka dhacayaan iyadoo la filayo beesha caalamka ka soo qayb gasho. dalka Soomaaliya waxa uga qayb galaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka, wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye iyo halka Somaliland ay uga qayb galayaan madaxweynaha Somaliland, gudoomiyaha golaha guurtida, ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya u qaabilsan wadahadalada Adna Aadan Ismaaciil iyo waliba wasiirka xanaanada Somaliland waa Saciid Sulub iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon. waxaana la filayaa maanta in halkaas shirka wajigiisa koobaad uu ka furmo. qodobo xasaasi ah ayaa laga wada hadlayaa, waxaana kamid ah ayaa leeyahay qodobada laga wada hadlayo in dalalka waa Soomaaliland iyo Soomaaliya aysan siyaasadeynin mashaariicda iyo waliba ayna joojiyaan warbaahinta ay isu marinayaan hawada inay qaybsadaan iyo waliba wadahadalada waxaa ka mid noqon doona sidoo kale in ganacsigii iyo socodkii ay sidoodii ku soo laabtaan oo aan la siyaasadeynin. ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo horboodaya wadahadaladaasi Abiy Ahmed ayaa isna ku soo wajahan magaalada Djibouti kaasoo la filayo inuu halkaasi warbixin ka jeediyo. madaxweynaha Djibouti oo gogashaasi dhigaya ayaa waxaa la sheegayaa inuu isaguna halkaasi warbixin ka jeedin doono. wasafiirka midowga Yurub ee wasafiirka Mareykanka ee Soomaaliya Dumateyo ayaa warbixinta ayaa waxa la yiri isaga wakiil uga ah baa la yiri dawladda Mareykanka kaasoo la sheegay inuu soo qabanqaabiyo wadahadaladaasi. waxaa sidoo kale wararku ay sheegayaan in Somaliland ay ku adkaysanayso in ay marka hore la ictiraafay inay tahay wadan horey u jiray ama horey uga madax banaanaa Soomaaliya kaasoo ay si xorriyad ugu biireen. waa sida ay Somaliland ku doodaysay. xalay warbaahinta waxaa kula hadlay magaalada Hargeysa Adna Aadan Ismaaciil oo ah ergeyga Somaliland u qaabilsan wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya iyadoo oo sheegtay in ay Somaliland aysan marnaba gorgortan ka leeyahay madaxbanaanimadeeda. wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon oo garoonka Hargeysa kula hadlay warbaahinta intii ayna dhoofin daqiiqado ka hor ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in ay Somaliland iyo Soomaaliya ay soo dhaweeyeen wadahadaladaasi. waxa uuna sheegay inaysan ka hor dhacaynin. wariyaasha ayaa wax ka weydiiyay Faratoon waxa uuna intaasi ku daray in Somaliland iyo Soomaaliya ay dhowr jeer kulmeen ayna Somaliland ka madax banaatay Soomaaliya. wararkan waxaa maanta xiisaha gaarka u yeelay ay kamid tahay in wadahadaladaasi Soomaaliya aysan ku jirin Somaliland dadkii ay horey u diiday kuwaas oo Somaliland ay sheegtay inaysan ka qayb galaynin. waxaas dadka dhammaan ka soo horjeeda ama dadka wadahadalka ka qayb galaya ay ka soo jiraan dhinaca koonfurta marka loo fiiriyo kaasoo Somaliland ay ku qanacday wadahadaladaasi. waxaana Somaliland horey uga carootay kadib markii loo soo diray wasiirka warfaafinta ee Somaliland waa Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye wadahadaladii Turkiga ee hakadka ku yimi iyo waliba xildhibaan Jengeli xildhibaanka lagu magacaabo kaas oo ay Somaliland guud ahaanba ka carootay ay tirtirkaas waxay ka soo jeedaan Somaliland. dhanka kale Puntland ayaa waxa ay sheegtay in ay gabi ahaanba ka soo horjeedo shirkaasi. waa afhayeenka madaxtooyada Somaliland Jaamac Dabarani oo bartiisa Facebook soo dhigay ayaa waxa uu sheegay in aysan macquul ahayn wadahadaladaasi aysan wax dheeraad ka soo baxayn. waxa uu sheegay in Somaliland iyo Puntland ay labadooda daris yihiin wadahadal uu muhiim ay tahay in Puntland ay ku biirto wadahadaladaasi. war qoraal oo ka soo baxay madaxtooyada Puntland sidoo kale waxa lagu sheegay in Puntland ay aad uga xun tahay wadahadaladaasi. dhowr jeer hore ayay Puntland ku celcelisay in ay
inay ka xun tahay wadahadaladaas inaan lagu soo darin. madaxweyne farmaajo ayaa waxaa u dhiman muddo yaroo kooban marka lasoo eego oo dowladiisa waxaana ay noqonayaan wadahadaladii ugu horeeyay ee si kafool ay u wada fadhiistaan Somaliland iyo Soomaaliya. bila ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliya iyo Somaliland ay ku kulmeen dalka Itoobiya, waxaana warbixino soo baxay ay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya uu ku wajahan yahay magaalada Hargeysa, taasoo gabi ahaanba beenooday markii madaxweynaha Somaliland uu sheegay inaan mid macquul ah aysan ahayn. wararka dabadana waxaa kamid ah dalka Nigeria waxaa ku dhintay 20 askari iyo halka 40 kale oo shacab ay ku dhinteen. ugu yaraan dad dhaawacmay la sheegaya in ay gaadhayaan 200 oo qof halkaas ay sheegtay saraakiisha caafimaadka. afayeen u hadlay booliiska dalka Nigeria ayaa waxa uu sheegay in kooxda Boko Haram ay weerar ku soo qaadeen xarun ay maamusho qaramada midoobay, taasoo dadka qoodisa waa sida uu sheegay afayeenka booliiska, waxaana sheegay in iska cabiyeen kooxihii weerar ku soo qaaday. ururka Boko Haram ayaa waxa ay warbixin soo saareen ku sheegeen in ay dileen askar ka tirsan dalka Nigeria oo kaasoo ay sheegeen qasaare u geysteen. weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay dalka Nigeria gaar ahaan gobolka Borno waqooyi bari dalka Nigeria, kaasoo kooxaha Boko Haram ay ku xoog yihiin. madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari ayaa cambaareen xoog loo geystay falkaasi, isagoo oo sheegay inuu aad uga xun yahay falkaasi. ururka Boko Haram ayaa weerar culus waxay ka wadaan dalka Nigeria gaar ahaan gobolka waqooyi bari ee dalka Nigeria, kaas oo ay sheegayo in ay dowladda ciidamada militariga Nigeria ay weerar cusub ka hor yimaadaan. madaxweyne Buhari waxa uu ciidamada ammaanka ku amray in ay dalka Nigeria ka saaraan kooxaha Boko Haram ee dalkaasi ka dagaalamaya. guud ahaan warkii caalamka aad kala socoteen Abshir Show, khayraadka qiimaha iyo qadarinta naga mudanay waa naga intaa.